iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka oo maalintii labaad ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyadoo ay maanta ka soo qayb galeen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Shirka ayaa maanta intiisa badan looga hadlay tubta siyaasadda loo dhan yahay, tubta horumarinta dhaqaalaha, tubta horumarinta arrimaha bulshada iyo tubta amniga iyo cadaaladda horumarkii laga gaaray iyo wada shaqaynta horumarinta mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyadoo taageerada beesha caalamka lagu saleynayo tubaha qaranka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa cadeeyay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo tirada ugu badan bulshada Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan horumarka dalka, haweenka dadka baahiyaha gaarka ah qabana ay diyaar u yihiin ka qaybgalka siyaasadda, taas oo meesha ka saaraysa dhaqankii hore ahaa in siyaasadda dalka ay hogaamiyaan koox yari. Dhammaan mas'uuliyiintii khudbadaha ka jeediyay ayaa kulanka ku amaanay horumarka ay ku tilaabtay Soomaaliya, waxayna ballan qaadeen inay sii wadayaan garab istaagga shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa shirka ka sheegay in wada shaqaynta madaxda qaranka ay horseeday in horumar laga gaaro isbedelada xasiloonida dawladnimada iyo ajandayaasha dib u qaabaynta ee sida wadajirka u taageerayaan shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada Soomaaliya ee caalamka, kuwaas oo soo celiyay rajadii ummadda Soomaaliyeed. Undeniable collaborative relationship between wada shaqaynta naga dhaxaysa aniga iyo madaxweynaha ayaa ah dhaqan siyaasadeed oo ogolaaday in la joogteeyo isbedelka horumarka dhabta ah iyo xasiloonida. Waxa aan madaxweynahayga uga mahadcelinayaa hoggaankiisa xigmadaysan. Marka labaad, dawladdeena iyo dib u habeynta waxaa rajadii la qabay ay u tarjumeen mid run ah. Meel kasta oo ay joogaan dadka Soomaaliyeed, xaafadaha fogfog iyo isu soo baxyada bulshada iyo doodaha siyaasadeed ee bulshada ayaa noqday kuwo aad muhiim u ah. The most significant indicator of our citizens' confidence is that our business community are now a key. Tilmaamta ugu wanaagsan ee caddeynta u ah in kalsoonida muwaadiniinta Soomaaliyeed ay soo laabatay ayaa ah in ganacsatadeenu ay qayb ka yihiin isbedelka. Ganacsatadu waxa ay bixiyeen cashuurtii ugu badneed ebed, waxa ayna dalbanayaan isla xisaabtan joogto ah, waxa ay aad u daneynayaan hanaanka ay dawladdu wax u maamulayso. Shirkana wajigiisii hore lagu qabtay magaalada Brussels ee wadanka Belgiumka ayaa Muqdisho martigelisay sanadkan, waxayna u muujinaysaa ummadda Soomaaliyeed in dawladnimadoodu ay taabagelayso isla markaana ay martigeli karaan shirar caalami ah oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayo, kuwaas oo horey loogu qaban jiray dalka dibadiisa, taasoo ku timid dadaalka iyo iskaashiga shacabka Soomaaliyeed ee dawladooda. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.